islaan waayeel iska ahayd waa iska tuusan jirtay waxay soo tuursataa ilmahaas aan sii jirin haddana markay iyada dhimatay bagaajaan soo wajahday iyo baahi iyo jiro iyo shuban. halkani waa kaamka Calaf Suge ee degmada Kaxda ee gobolka Banaadir waxaa ku nool qoysas aad u dan yar hase yeeshee qoyskan ayaa maalinta waxaa ka geeriyootay 3 caruur ah kuwaasi oo la sheegay inay u geeriyoodeen gaajo darteed. qoyskan maamadii gacanta ku haysay oo u qaraabo jirtay waxay ku geeriyootay qaraxii ka dhacay ex control afgooye ee magaalada Muqdisho hase yeeshee waxay ku nool yihiin xaalad aad u liidata. hadda qoyskan wuxuu ka kooban yahay 6 qof oo gabadhan aad u jeedaan ay dhashay 5 caruurta iyo 3 geeriyootay. waxay wajahayaan xaalad aad u liidato oo ah waxaan la kulnay gabadha caruurtan dhashay waxaan wax ka wareysanay xaaladda hadda ay ku nool yihiin iyo sababta ay caruurtaasi u geeriyoodeen. caruurteeda 8 ay ahaayeen 3 ayaa ii geeriyootay 2 mataano ay gabadha oo igu yareedo 5 bilood ciyaarta kala sanadkii hore ay jireen hooyaday ay soo shaqaynaysay qalxiga isqoontada ayay ku dhimatay isoo garaabo isoo gurmadan waabaayay daraska baaqul wax uu keenayay daraska la aqoonta iska aruureen nolol weyn ayaa iga soo baxay oo baxtin ah markii qaliin aan u sameeyay daraska kunta soo dariya qaliin la u sameeyay qaliinka hadii la u sameeyay hadana daawooyin iyo waxa soo qaadanay daawooyinkii aan waayay caruurteeda shughul muddo ah iga dhacay gaajo aaweed wax si oo la waayay halka mar oo daraska baaqul ana maan wax kala arkeen taanku waa kala daran yahay dad badan ayaa ku baxay hada aniga 3 iga dhimatay iyo 7 kale 7 caruur iyo 3 qof waaweyn ka baxay 7 qof ka baxday taas ahaatee aniga u sii liidana adiga waa sii liidan yahay aniga wax ii shaqeynaa adigeeyana soo u baxay baabartiis inuu dhintay inuu leeyahay warka ma hayo aniga sidii marka maamadii maxay ka shaqeyn jirtay maamada waa tuugsan jirtay shaqamada u shaqeyn jirtay islaan waayeel iska ahayd waa iska tuusan jirtay waxay soo tuursataa ilmahaas aan sii jirin haddana markay iyada dhimatay bagaajaan soo wajahday iyo baahi iyo jiro iyo shuban aan soo wajahday. hay marka hadda adiga laftaada dhaawac ayaa tahay qalina mar dhow ugu sameeyay ilmahan waa ilmo yar yar aabahood xaguu jira goorma ku wardambeysay aabahood ana uurka 9 bilood ana ahaa igu wardambeysay oo cunta hadda iga dhimato 5 bilood hay ayada uurkeeda aan leeyahay igu wardambeysay soo u baxay miraqdiis ilaa hadda ma lahayo hay meel ku sameeyaan ma aqaan عادان واسكح حمد علي سيدي اسكح حمد ايدودا wax soo qaraa u jirta ayadoo qarxiye baquli ma qibo wax soo qaraa la waayo daraska la baaqo ku keenayeen daraskana waa la kala diidan yahay sidii loo gal oo dib badan yahay waaye baquli daraska la igu keenaa ku qalinka la u sameeyay ku daraska isku dardaray daraskana hadda wax daawo wax ku gataa taa ay awood waayeen. marka hadda bulshada Soomaaliyeed maxaad ka dalbanaysaa bulshada Soomaaliyeed walaalaheeda waxaan ka codsanayaa inay gargaar degdeg u soo sameeyaan oo guryaha dabacayna ma saano guryaha u soo qastay waaye dan idruufana haasan ulama haasan biyo haasan wax aan haasan wala ina noo soo gargaaraan muslimiinta walaalaheed ka codsanayaa. gabadhan aad u jeedaan waa gabadhii maalin dhaweyd ay ka geeriyoodeen 3 caruurta ah oo gaajo darteed ay geeriyoodeen haddana waxa u joogta 5 caruur ah wali waxay wajahayaan xaalad bini'aadanimo aad u liidato. bulshada Soomaaliyeed iyo madaxda dawladda waxay ka dalbadeen in la gacan siiyo oo wax loo qabto waxay ku nool yihiin waa u jeedaan guryaha aanba hatta ciidanka roobka iyo dhaxanta intaba sida u jeedaan waxa meesha ku sii nool caruur aad u yar yar oo u baahan nolol bini'aadanimo iyo sidoo kale cuntadii ay cun lahaayeen. markaan guriga tagnay oo ay ku nool yihiin qoyskan u jeedaan ay danta yar waxaan isla goobta ugu tagnay dhalinyaro Soomaaliyeed oo isxilqaamay ku nool magaalada Muqdisho oo deeq raashin ah soo gaarsiiyay qoyskan ay 3 caruurta ah
ay ka geeriyoodeen kuwaasi oo la sheegay inay gaajo u geeriyoodeen dhalinyaradan waxay ka kala yimaadeen magaalada Muqdisho waxayna ka kooban yihiin wiilal iyo gabdho kadib markii qaylo dhaanta qoyskan ay maqleen iyo dhibaatada ku dhacday intaba dhalinyaradaasi waxaa ka mid ah Cabdirasaaq Xasan Cabdi waxaana wax ka weydiinay deeqdan ay soo gaarsiiyeen maanta qoyskan danta yar بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وثناء الله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده انت اسكدب رن ahaantii markay taariikhda 12 bishan galabnimo axad ah ayaa xilli galab 10 saac oo galabna ayaa waxaan dhageystay warbaahinta markaas oo soo gaartay xogta ugu horeyso ah inay jiraan qoys Soomaaliyeed oo ay ka geeriyootay maamadii u kaalmeynaysay ama u soo shaqeynaysay sidoo kalena ay maamadaas raaceen ama ay geeriyoodeen 3 caruur ah kuwaas oo gaajo ama baahi daraadeed u geeriyooday isla markaas ayaa waxa ugu dhashay fikir ah shakhsiyan ani ahaan Cabdirasaaq Xasan Cabdi sida aan wax u qaban kara hase yeeshee markaan dhinacyo badan fiiriyo waxa ii soo baxday aniga kaliya oo socdayna halkaas waxba gaari karin balse waxa ii suura gashay inaan aniga ahay nin dhalinyaro ah oo handana dad wax bara oo macallin ah taasi ayay wax iga saaciday inaan qoyskan soo saacida qoyskan soo gaarna ama wax aan la soo gaarin isla habeenkii ardaydan la tashtay waxaan dhahay adinka dhalinyaro tihiin caruur tihiin alxamdulillah maanta ilaahay wuxuu siiyay waxaad cuntaan waxaad cabtaan meelaha seexataan hooyo aaba wax in bara marka ardayda waxaan dhahay waxa jira qoys Soomaaliyeed oo adinka in la mid ah oo caruur gaajo uga dhimatay maxaan qaban karnaa ardaydu waxay yiraahdeen macallin qof walbo anaga naga mid ah wax allaal wixii awoodna dhar raashin bisil wax walbaan keenaynaa adiga wakiil naga noqo qoysaskaas gaarsii markaas ayaan waxaan bilaabay qoyska cid walba xog aan halkaan ma aqoonin markaas baan warbaahinta ka maqlay markaas ayaan waxaan bilaabay inaan raadiyo sidii aan u heli lahaa qoyskan